Assalaamu calaykum daawadayaal. Labadii arday ee sameeyay hal-abuurkii dunida ka yaabiyey Larry Page iyo Sergey waa laba ganacsado oo Mareykan ah. Asalkoodu waa qoomiyadda Yuhuudda. Larry waxa ku dhashay gudaha Mareykanka, halka Sergey ku dhashay Ruushka. Sergey waalidiinta ayaa u soo guuray Mareykanka isagoo 6 sano jira. Larry Page iyo Sergey waxa ku kulmeen jaamacadda Stanford iyagoo arday ah oo diyaarinaya shahaadada PhD-da sanadkii 1998. sanadkaas ayaa aasaasan shirkadda Google, waxa ayna go'aansanayeen isla sanadkaas shirkadooda yar iska iibiyaan si ay waxbarashadooda sii wataan. Shirkadda Yahoo oo xilliga ahayd shirkad weyn ayay u bandhigeen inay ka iibsato shirkadooda yar, waxaana ka dalbadeen lacag dhan $1 milyan oo kaliya. Yahoo waxa ay iska diiday inay ka iibsato Google, Larry iyo Page iyo Brin ma aysan haysan maalgelin ku filan oo kor ugu qaadaan shirkadooda yar. sanadkii xigay ee 1999 ayay haddana shirkadda Exit oo iyana internet ka shaqeysa u bandhigeen inay $1 milyan oo ku iibsato, balse nasiib darro iyana waa ay diiday. weliba markii dambe ay $750 ka dhigeen qiimaha, balse maamulihii Exit ee xilligaasi ayaa iska diiday dalabkaasi. Google waxa ay soo dhujisaba oo maalgelin yaryar heshaba waxay noqotay mid ka soo muuqata gudaha Mareykanka. sanadkii 2003 ayaa haddana Page iyo Brin Yahoo u soo bandhigeen inay $5 bilyan ku iibsato Google. mar kale ayay fursad kale iska khasaarisay Yahoo, waana ay diiday dalabkaasi. maanta Google waxa ay ka mid tahay 4 shirkadood ugu ballaaran dunida, kuwaas oo hogaamiya tiknoolajiyadda caalamka ka hana qaaday. qiimaheeda suuqa wuxuu kor u dhaafayaa $700 bilyan, waxa ay ka mid tahay 4 shirkadood ugu qiimaha sarreeya dunida. 22 sano ka hor Larry iyo Sergey waxay doonayeen lacag $1 milyan oo kala qaybsadaan, balse maanta waxa uu haystaa midkiiba lacag $60 bilyan kor u dhaafaysa. waxa ay iibsadeen YouTube sanadkii 2005. Larry waa shakhsiga 10aad ee dunida ugu hodansan, halka Sergey uu yahay shakhsiga 14aad ee caalamka ugu hodansan. waxaanay aasaaseen shirkadda Alphabet oo maamusha ama iskale Google, YouTube iyo boqolaal shirkadood kale oo internet ka shaqeeya. waxa ayna ka mid tahay shirkadaha ugu qiimaha sarreeya dunida waqtigan. waxa lagu qiimeeyaa in ka badan $860 bilyan, dakhligeedana wuxuu kor u dhaafayaa $130 bilyan. waa laba nin oo la moodo inay yihiin walaalo mataana ah, waa isku da oo waa 46 jiro, mid gobolka Michigan ee Mareykanka ku dhashay, midna Moscow oo Ruushka ah. hal-abuur isku mid ayay la yimaadeen, waxaana hindisay madasha loogu booqashada badan yahay dunida, internetka ee Google. waxaa lagu tilmaamaa hal-abuurkii ugu weynaa abid ee qof aadami sameeyo. haddaba daawadayaal, ma jiro dunida cid hor joogsan karta horumarkaaga, kaliya dhaqaaq oo samee isku day xooggan. guushu waa hal mid, balse waxaa loo maraa dariiqyo kala duwan. ha iloobin inay dunidu marayso heer markastoo aad guusha sii dhawaato nacabkaagu sii badanayo. u istaag maanta inaad noqotid guulaystaha berri. cidna marti ha uga noqon guushaada, kaliya guusha waxa kaa xiga dadaal iyo waqtigaaga ood maal gashato. go'aanka aad maanta gaadhaysaa waa mustaqbalkaaga berri toole. haddii aad barkinta dheeraysatid, waxaad ahaan doontaa qof laga tegay oo ka hadhay qeyrkii.